Assalaamu calaykum. Waqooyiga magaalada Seattle, gobolka Washington, halka ay iska galaan buuraha Cascade iyo badda degan, waxaa ku taalla magaalo lagu magacaabo Arlington. 13 bishii February 2014, nin ayaa wuxuu u sheegay booliska in garaashka guri ku yaala magaalada uu ku duugan yahay meydka qof. Markii ay booliska tageen guriga oo ay baareen, waxay ka soo heleen sanduuq ay ku jiraan 3 bacood oo uu ku jiro meydka qof la jarjaray. Si ay u ogaadaan meydkan iyo qofka uu yahay, waxay raadiyeen boolisku haweeneydii lahayd guriga oo lagu magacaabo Michelle Donahue, laakiin waa ay waayeen. Waxay isweydiiyeen intaa kadib booliska, qofkan la dilay ma iyada ayaa dishay Michelle, ma lug ayay ku lahayd dilkiisa, mise waaba iyada qofkan la dilay ee meydkiisa ay heleen. Michelle Donahue waxay markeedii hore ku dhalatay meel lagu magacaabo Position Sound oo ka tirsan jasiiradaha gobolka Washington. Gobolka Washington wuxuu leeyahay dhowr jasiiradood, mid ka mid ah jasiiradahaas ayay ku dhalatay. Sanadkii 1981 waxay ahayd Michelle 16 sano jir markii ay la kulantay nin lagu magacaabo George Wagenbalast oo 22 sano jir ahaa. Michelle qoyskeeda inta badan uma aysan ogoleen inay baxdo ama inay xafladaha tagto ama inay warwareegto oo ay dhalinyarada raacraacdo, gaar ahaan hooyadeed. Si ay uga fogaato kontaroolka qoyskeedana, waqtigeeda inta ugu badan waxay la qaadi jirtay George. Hal sano markii ay xiriir lahaayeen sanadkii 1982 oo ay gaartay Michelle 17 sano, waxay go'aansatay inay guriga qoyskooda isaga tagto oo ay George gurigiisa u wareegto. Markii ay u wareegtay guriga George oo ay muddo isla noolaayeen, waxay la soo baxday dabeecadaheedii dhabta ahaa. Waxay bilowday inay wareegto, waxay bilowday inay xaflado aado, sidoo kale waxay sameey jirtay guriga marka uu shaqada ka yimaado isaga oo sidiisa ah ay uga tagi jirtay. Wuxuuna ku qasbanaa jiray mar walba markuu shaqada ka yimaado kadib inuu guriga nadiifiyo oo uu hagaajiyo. 3 sano markii ay sidaas ku wada joogeen, ugu dambeyn George waa uu dhibsaday, waana uu raacdeeyay oo guriga ayuu ka raacdeeyay. Markii uu guriga ka raacdeeyay dhowr isbuuc kadib, ayay mar kale u timid, waxayna u sheegtay in ay uur u leedahay. Wuxuu ku qasbanaaday George inuu mas'uuliyadda qaato, sidaa darteed waa uu guursaday sanadkii 1985. June sanadkii 1986 waxaa u dhalatay gabar, waxayna ugu magac dareen Stacy. Gabadha markii ay u dhalatay kadib, wuxuu filayay George maadaama ay hooyo noqotay in ay isbedeli doonto oo ay gurigeeda joogi doonto oo ay gabadheeda daryeeli doonto. Laakiin Michelle waxba iskama bedelin, dabeecadaheedii hore ayay sii wadatay. George isaga maadaama ay cunug yar u dhalatay, wuxuu ku qasbanaaday in uu shaqo labaad ka shaqeeyo oo waqtiga uu shaqeeyo uu kordho si mas'uuliyadda cunugta yar uu u qaadi karo. Michelle waxay sameey jirtay, waxay sugi jirtay inta uu ka imaanayo. Marka uu yimaado oo uu shaqada ka yimaado, isla markiiba waa ay bixi jirtay. Cunugta yar ay uga tagi jirtay, waxay ku dhihi jirtay cunugtaada hayso, iyaduna waa ay bixi jirtay. Waxay aadi jirtay wareeg, xaflado, baarar, meelaha lagu ciyaaro qamaarka. George markii uu arkay inaysan waxba iska bedelayn, wuxuu ku qasbanaaday in cunugtiisa yar darteed uu ugu dulqaato. 2 sano oo kale markii isla sii joogeen, maalin ka mida bishii July sanadkii 1988, George wuxuu ka yimid shaqada. Markii uu shaqada ka yimid oo uu guriga yimid, wuxuu u yimid gurigii oo faaruqa oo aysan waxba oolin. Wixii guriga yaalay oo dhan, alaabtii iyo wixii guriga yaalla oo dhan waxaa qaadatay Michelle. Gabadhii yareedna waa ay qaadatay. Markii uu la xiriiray Michelle oo uu raadiyay, waxay ku rakaatayday inuu lacag dhiibo haddii uu rabo gabadhiisa inuu la kulmo ama gabadhiisa inuu arko. Sidoo kale waxay ka dacwootay maxkamad, waxay dalbatay furiin. Sanadkii xigay sanadkii 1989 ayayna si rasmi ah u kala tageen. Maadaama isaga uu waqti badan shaqeeyana, maxkamaddu waxay xanaanada cunuga yar u xukuntay Michelle. Gabadha waxaa la siiyey Michelle, isaga George-na waxaa lagu amray in biilka gabadha yar uu bixiyo. Markii Michelle cunugta yar la siiyey, maadaama Michelle inta badan aysan jeclayn inay guriga joogto oo ay jecleed inay wareegto, waxay ku dhihi jirtay George lacag bixi, lacag dheeriya bixi. Gabadhana waxaa soo haysataa dhowr maalin, 5 maalin oo kale, isbuuc oo kale. Isbuucaas ha kula soo joogto oo gabadha adiga hayso, laakiin waa inaad lacagtii iska bixido. Lacagtii biilka gabadha maaha, waa lacag kale oo rakaata ah oo ay isaga ka qaadaydo. Isbuucaas oo kale ayay iska soo wareegi jirtay, kadibna gabadha ayay dib u qaadi jirtay. Sidaas ayayna ku waday muddo. 2 sano ee xigtay sidoo kale, lacagta biilka gabadha yar ee Stacy waxay uga qaadi jirtay kaash ahaan. 2 sano markii ay dhamaatay, ayay mar kale waxay ka dacweyday maxkamadda, waxayna ku dacweyday inuusan dhiibin lacagtii biilka ee
gabadha waxaa looga yeeray mar kale George maxkamadda markii uu tagay waxaa loo sheegay in lagu leeyahay lacag $10,000 oo ah biilkii gabadha 2 sano ee la soo dhaafay maadaama Michelle ay leedahay lacagta ma uusan dhiibin markii uu ku andacooday inuu lacagta dhiibay oo uu yiri lacagta waan siiyana waxay tiri Michelle ha keeno cadayn ha keeno rasiidyadii uu lacagta ku bixiyay hadii uu lacagta bixiyay wuxuu ku qasbanaaday George inuu lacagta iska dhiibo ama inuu maxkamad isagana ka dacweeyo oo ay isjiijid daba dheeraada galaan wuxuuna go'aansaday George inuu iska daayo oo uu lacagta iska dhiibo markii ay muddo sidaa ku joogtay Michelle waxay go'aansatay inay raadido il dhaqaale oo kale ilaheeda dhaqaalahana waxay ahaayeen nimanka waxay go'aansatay inay nin kale raadido sanadkii 1994 waxay bilowday inay baxdo inay xafladaha aado inay baararka tagto si ay nin u raadido nin lacag leh cunugteeda yarna waxay uga tagi jirtay guriga gabadha yar ee dhashay Stacy oo xilliga ahayd 8 sano jir sanadkii 1994 waxay la kulantay nin lagu magacaabo Byron Wright Byron wuxuu ahaa 43 sano jir markii ay kulmeen Byron wuxuu ahaa farsamayaqaan sameeya diyaaradaha sida darteed wuxuu haystay lacag fiican wuxuu lahaa dhulal waaweyn wuxuu lahaa guri weyn sidoo kale wuxuu jeclaa baabuurta inuu baabuurta qaaliga ah uu soo iibsado sidoo kale uu farsameeyo maadaama uu farsamayaqaan yahay baabuur badan oo qaali ayaana guriga u yaalay Michelle markii ay la kulantay Byron oo ay aragtay xoolaha uu haysto waxay go'aansatay in kan uu yahay ninkii ay rabtay waxay go'aansatay inay lacagta ka daldasho muddo yar kadib waxay u soo guurtay gurigiisa iyada iyo gabadheeda guriga ayay u soo guureen guriga markii ay timid waxay aragtay Byron in dabeecadiisa iyo dabeecadeeda ay kala duwan yihiin 100% isaga wuxuu ahaa inta badan qof guriga jooga marka uu shaqada aadayo maahane inta kale wuxuu joogi jiray guriga kama bixi jirin Michelle sidii aan hore u soo niri waxay jecleed wareegga xafladaha iyo baararka inay aado markii ay Byron gurigiisa u soo wareegtay oo ay dabeecadiisa aragtay si hadafkeeda ay u gaarto waxay go'aansatay in dabeecadeedana ay ka dhigto dabeecadiisa oo kale waxay ka baratay guurkeedii hore in dabeecadeeda aysan si dhaqso ah ku soo saarin si hadafka ay leedahay ay u gaarto inta ay haysato Michelle waxa ay doonaydo oo ah lacagna dhib kuma aysan qabin inay guriga joogto waxay ku yeelatay sidoo kale Byron saameyn xun oo ah inay ka goydo qoyskiisa Byron marba marka ka dambeeyda waxa ku sii kordhayday kalinimada wuxuuna ka go'ay qoyskiisa markii hore waa uu xiriiri jiray waa uu wici jiray laakiin waa uu gooyay 2000 markii la soo gaaray Byron iyo Michelle waa ay isguursadeen markii ay isguursadeen kadib Michelle waxay u xiistay nolosheedii hore noloshii wareegga iyo xafladaha iyo baararka waxay isku dayday Byron inay ku qancido inay baxaan oo ay soo wareegaan laakiin kuma aysan guuleysan 2004 markii la soo gaaray waxa ka soo wareegtay intii ay isla joogeen Michelle iyo Byron 10 sano xilliga isaga George waa uu guursaday wuxuu lahaa 2 caruur oo kale 2004 bilowgeedii ayuu wuxuu ku yiri Michelle waxaan aadaynaa aniga iyo xaaskeyga iyo gabdhahayga wadanka Ireland waxaan rabnaa in Stacy ayna raacdo waxay ku tiri wata Stacy waxay raacday aabaheed waxay aaday Ireland fasax ay soo qaadatay muddo ay ku maqneed waxay soo laabatay bishii September 2004 markii ay soo laabatay waxay guriga ugu timid hooyadeed oo kaliya Michelle waxay u sheegtay Michelle gabadheeda in Byron uu la kulmay haweeney kale oo maalqabeena oo uu raacay haweeneydii maalqabeenka ahayd iyadana uu ka tagay oo uu guriga iyo waxa ay haysato oo dhan uga tagay waxay tiri Michelle wuxuu yimid guriga isagoo la socda haweeney wuxuu ku yiri haweeneydu waa maalqabeen iyada ayaa nolosheeda kafaala qaadayda wuxuu qaatay dhar oo kaliya kadibna waa uu tagay waxay ku noqotay gabadheeda la yaab sidoo kale booliskana sidaa ay u sheegtay maadaama wax hadalkeeda beeninayana uusan jirin kuma aysan sii mashquulin waxay yiraahdeen boolisku waa nin weyn oo qaangaara haddii uu rabo inuu tago isaga ayuu qusaydaa bishii October 2004 waxay dalbatay Michelle furiin waxay ka dalbatay maxkamadana waxay ku yiraahdeen waxa la xiriirtaa Byron haddii aad la xiriiri karin oo meel laga xiriiro aadan hayna waxa ku qortaa maqaal wargeyska waxaana ka codsataa Byron furiin haddii uu soo jawaabi waayo maxkamadda ayaa ka furayda wixii uu kaaga tagay oo dhan gurigii iyo dhulalkii iyo baabuurtina adiga ayaa la wareegaya adiga ayaa lahaanaya markii uu soo jawaabi waayay Byronna iyada ayaa qaadatay waxaas oo dhan markii ay qaadatay waxay bilowday inay iibido waxay iibiday dhul uu lahaa $110,000 ayay ka bixiday
8 baabuur oo ka mid ah baabuurtiisii qaaliga ahaa sidoo kale waa ay iibiday waxay sidoo kale qaadatay lacag qiimaheedu dhan yahay $125,000 oo ahayd lacagtii Byron uu kaydsan jiray lacagtii uu ugu talagalay markii uu shaqada ka fariisto in uu ku noolaado oo uu kaydsan jiray lacagtaas haaf ka mid ah oo ah $125,000 ayaa sidoo kale la siiyey waxayna si degdeg ah ku noqotay Michelle maalqabeen sidoo kale waxay sheegeen deriskeeda inay bilowday in guriga qaybihiisa dambe qaybaha beeraha ay dayactir ku sameeydo oo ay ciid cusub oo caramadow ah ay ku shubto iyada oo sabab uga dhigayda in ay doonaydo in beerta ay mar kale dib u abuurto sanadkii xigay waxay mar kale dib u bilowday inay raadido nin cusub laakiin markaan waa uu ka doonaa ninka ay raadinaydo nimankii hore markii hore nimanku waxay ku raaci jirtay lacag sida Byron oo kale laakiin markaan iyada ayaa lacagta haysatay waxay doonayda markaan nin dabeecadeeda oo kale leh nin wareeg iyo xaflada ka daba wareeg iyo qamaarka waxyaabahaas ku fiican oo dabeecadaheeda oo kale leh waxay la kulantay nin lagu magacaabo Joel Donahue isaguna wuxuu ahaa nin da'diisu ay tahay 30 oo kale wuxuuna lahaa dabeecadaheeda oo kale markii ay kulmeen dhowr bilood kadib wuxuu u soo wareegay gurigeeda gurigii Byron ee iyadu ay dhaxashay ayuu u soo wareegay guriga markii uu yimid waxay ku mashquuleen Joel iyo Michelle sidii lacagtii Byron ay u baabi'i lahaayeen waxay bilaabeen inay guriga dayactiraan sidoo kale waxay bilaabeen in ay xaflado aadaan hoteelo qaali ay degaan qamaar ay lacagta ku ciyaaraan 2007 ayayna ugu dambeyn isguursadeen markii ay isguursadeen oo muddo uu ka soo wareegay guurkooda lacagtii Byron uu uga tagay Michelle waxay bilowday inay dhamaato maadaama muddo ay isticmaalayeen sidaa darteed Joel wuxuu ku qasbanaaday inuu shaqo bilaabo wuxuu shaqo ka samaystay garaashka guriga baabuur ayuu ku sameey jiray laakiin waxa lagu eedeey jiray dibna uga cadaaday in baabuurta meesha ay ku farsameeyaan ay yihiin baabuur la soo xaday baabuurta markii la soo xado waa ay furfuri jireen waxayna u iibi jireen qaybo spare parts ay u iibi jireen laakiin iyagu waxay sheegi jireen in hawshoodu ay tahay inay baabuurta sameeyaan isaga iyo nin saaxiibkiisa oo lagu magacaabo Michael Huslin intii Michelle iyo Joel ay lacagta isticmaalayeen lacagtii Byron kaarkii Byron ayaa waxa lagu yeeshay lacag badan oo deyna sida darteed Michelle waxay ku qasbanaatay in guriga ay rahan dhigto oo ay bangiga rahan u dhigto inta ay lacagta iska dhiibayaan sidii Michelle dabeecadda u ahayd mar walba oo waqtiga ay isla joogaan iyada iyo ninkeeda uu daba dheeraado waxay ahayd mar walba oo xiriirkooda uu xumaado 2013 markii la soo gaaray Joel iyo Michelle xiriirkooda ma uusan wanaagsaneyn sida isaga uu leeyahay wuxuu yiri waxa badnaa in dabeecadaheeda ay isbedbedelaan 20kii bishii December 2013 deegaan 16 kiiloomitir u jira meesha uu ku yaalay guriga Michelle oo lagu magacaabo White Road oo ka mid ah magaalada Arlington deegaanka waxa lagu magacaabo Snohomish waxa ku yaala xabsiga deegaanka nin ku jira ayaa wuxuu ka codsaday maamulka xabsiga inuu la kulmo dambi baarayaasha deegaanka markii uu la kulmay dambi baarayaasha wuxuu u sheegay dambi baarayaasha in uu jiro nin lagu magacaabo Joel Donahue wuxuu yiri Joel Donahue wuxuu qabaa haweeney lagu magacaabo Michelle waana haweeneyda la guriga uu ku nool yahay Joel wuxuu yiri guriga wuxuu leeyahay garaashka waxa lagu farsameeyaa baabuurta la soo xaday waxaana loo gadaa baabuurta spare parts ahaan qayb ahaan waxa ka shaqeeya nin lagu magacaabo Michael Huslin oo Joel saaxiib la ah isagana wuxuu u sheegay inuu baabuurta soo xado kadibna uu u geeyo baabuurta iyagu ay furfuraan kadibna ay baabuurta iyagu sii gadaan laakiin macluumada muhiimka ah ma aysan ahayn intaas waxay ahayd hordhac si uu u fahansiiyo waxa meesha ka jira wuxuu u sheegay in isaga uu saaxiib la yahay Michaelna uu u sheegay in garaashka ay baabuurta ku farsameeyaan qayb ka mida uu ku duugan yahay meydka qof la jarjaray waxaana lagu dul daboolay ayuu yiri shamiito oo lama arki karo waa uu shamiitaysan yahay intaa markii uu u sheegay dambi baarayaasha waxay ku noqotay layaab sababta oo qof la dilay ama kiiska qof la waayay ma aysan ogeyn dambi baarayaasha sidoo kale ninkana maadaama uu yahay nin xabsiga ku jira waxay u qaateen in uu been sheegayo si uu xabsiga uga baxo waxay ku yiraahdeen haddii microphone aan ku dhiibno oo microphone aan kugu dhajino inta dib ugu laabata Michael ma ku qanci kartaa mar kale in sheekada uu kaaga sheekeeyo iyadoo codka uu duubmayo wuxuu ku yiri haa waxay ku xireen microphone waxayna u direen mar kale in Michael uu ku qanciyo in sheekadii uu ugu celiyo nasiib wanaagooda maalinkii ka horeeyay
ayaa waxaa lagu soo daabacay wargeyska sheekada qof meydka qof ku duugay guri uu leeyahay. dabiibaarayaashu waxay ku yiraahdeen joornaalkan qaad Michael u geey, laga yaabo in sheekadii ay xasuusido oo mar kale uu kaaga sheekeeyo isaga oon kaa shakin. waxaana dhacday sidii ay filayeen. ninkii markii uu qaaday wargeyskii oo Michael uu u geeyey, Michaelna sheekadii uu akhriyay, wuxuu ku yiri ninkii ha ka walwalin, meydka boolisku ma helayaan haddii ay raadiyaan, sababta wuxuu ku duugan yahay 2 mitir hoosteeda, dhulka 2 mitir ka hoos ayuu ku duugan yahay, waxaana ka koreeya shamiito ayaan ka dul dhisnay. intaa kadib wuxuu weydiiyey ninkii Mike yay ahayd fikradiisa in qaabkaas loo duugo. wuxuu ku yiri waxay fikradooda ahayd Joel iyo Michelle. idea was to put that underneath the slab. That would be Joel. And Michelle. wuxuu sheegay sidoo kale in shaqadii ugu horreeyay aslan ee uu qabtay Joel markii ay kulmeen in ay ahayd in meydka uu la duugo isaga iyo nin kale oo ay saaxiibo yihiin oo isagana kala shaqeeya garaashka oo lagu magacaabo Walter Shaw. sidii aan soo niri, Michelle waxay dhigtay guriga rahan, sida darteed waxay ka cabsanayday in bangigu uu guriga kala wareego. haddii bangiga uu guriga kala wareegana waxay ka cabsatay haddii guriga ay shaqo ka qabtaan qaybta beerta oo kale in ay meydka helaan. sida darteed waxay ka codsatay Joel iyo saaxiibadiis in meydka meesha ay ka raraan qaybta beerta oo ay ku duugaan qaybta garaashka si fiicanna ay u qariyaan. Joel Danhue iyo Mike Hueslen iyo Walter Shaw ayaa waxay soo saareen meydka. wuxuu yiri Mike markii uu sheegay ninka meydka waa uu jarjaraa, wuxuuna ku jiray sanduuq. qayb kale oo ka mid ah meydka xubnihiisana waxay ku jireen bac. waxay keeneen meydka qaybta garaashka, waxay u qodeen god aad u dheer oo 2 mitira, waa ay ku duugeen, kadibna waxay ka dul dhiseen shamiito si meydka aan loo helin. intaa markii ay maqleen dambibaarayaasha waxay hubsadeen in ninka uu run u sheegayay ninkii xabsiga ku jiray ee markii horeba macluumadan u sheegay. dambibaarayaashuna xilliga dabcan marka ay labada nin sheekaysanayeen, codka waa ay duubayeen, sidoo kalena waa ay dhageysanayeen. waxay ka dhageysanayeen baabuur ay dhigeen meel u dhow guriga. markii intaas ay ka sheekaysteen Mike iyo ninkii, waxay raaceen baabuur, kadibna waxay aadeen magaalada si ay u soo qaadaan Michelle. waxay tageen meeshii ay ka shaqaynayday, waa ay soo qaadeen. intii ay jidka soo socdeen waxay maqleen dambibaarayaasha wax kale oo la yaab leh. Michelle markii ay baabuurka soo raacday, waxay bilaabeen iyada iyo Mike inay ka sheekaystaan Joel oo ay maanta dhan caayaan. ugu dambeynna waxay ku tiri way fiicnaa lahayd haddii ay jiri lahayd qaab aan uga takhalusi karna isaga oo dhan, ma dili karnaa. waxayna ogaadeen dambibaarayaasha in ay isku dayaydo in ay disho Joel. dambibaarayaasha markii intaa ogaadeen waxay dalbadeen warqad fasax inay baari karaan guriga. 13 February 2014 ayayna heleen fasaxa. waxay tageen guriga markii ay tageen Michelle ma aysan joogin, waxaa joogay Joel oo kaliya. Joel waa la soo xiray. waxay u sheegeen sidoo kale in xaaskiisa ay qorsheynaydo inay disho. waxay direen sidoo kale boolis si ay u soo raadiyaan Michelle. waa la soo helay, waxaana la dhigay xabsiga. booliskana waxay bilaabeen in guriga ay baaraan, gaar ahaan garaashka. markii ay garaashka qodeen meeshii uu meydka ku duugnaa, waxay ka heleen sanduuq iyo bac. sanduuqa waxaa ku jira meydka qof, bacdana waxaa ku jira lugihiisii iyo gacmihiisii iyo madaxii. jirka inta dhexe oo la jarjarayna oo lagu duubay marana waxay ku jireen sanduuqa. waxay u direen boolisku intaa kadib dhakhtarka si baaritaan loogu sameeyo oo ay u ogaadaan qofka uu yahay. Michelle iyada markii ay soo qabteen waxay geeyeen xabsiga. waxay ku eedeeyeen in lug ay ku lahayd baabuurta la soo xaday ee ninkeeda iyo saaxiibadiis ay ku iibiyaan gurigeeda. markii ay keeneen xarunta booliska oo ay wareysteen, waxay wax ka weydiiyeen nimankeedii iyo taariikhdeedii hore, gaar ahaan Byron Wright. waxay ku yiraahdeen Byron Wright xaguu aaday. waxay ku tiri 2004 ayuu tagay oo naag raacay, dib dambana uma aan arag, warkiisana ma maqal. waxay ku yiraahdeen been ayaa sheegtay, waxaan haynaa macluumaad sheegaya in Byron aad dishay, gurigaagana uu ku duugan yahay. waxay u isticmaaleen dambibaarayaashu istaraatiijiyad inta badan ay isticmaalaan marka dadka dambiga geystay ay ka badan yihiin hal qof. istaraatiijiyadaasuna waa inay iska hor keenaan labada qof oo ay been u kala qaadaan. tusaale ahaan inay mid ku yiraahdeen qofka kale wuxuu qirtay inaad dilka geysatay ama inaad dambigaas gashay, adiga ayuuna kugu eedeeyay, sidaa darteed midka kale isagana waa u qiranayaa. si uu eedda isaga bari yeelana qofka kale ayuu eedda dusha ka saarayaa. waxay ku yiraahdeen Michelle, Joel wuxuu ku jiraa qolka kugu dhagan, wuxuuna noo sheegay in Byron uusan tagin 2004 oo adiga aad dishay, kadibna guriga aad ku duugtay
oo muddadaasoo dhan uu guriga ku duugnaa, laakiin Michelle waa ay inkirtay in Byron ay dishay ama in gurigeeda uu ku duugnaa. dhanka kale Joel isaga markii ay wareysteen wuxuu u sheegay in Michelle ay u sheegtay in Byron ay dishay meydka qofka ay guriga ka heleenna inuu yahay Byron. meydkii markii ay qaadeen oo ay dhakhtarka geeyeen oo baaritaan ay ku sameeyeen waxay ogaadeen in uu yahay meydka Byron. Michelle bishii July ayaa waxaa la soo taagay maxkamad. waxay aaminsan yihiin dambibaarayaashu in sidii wax u dhaceen ay ahayd. Michelle waxay dareentay in Byron uu dhibsaday oo uu doonayay inuu furo maadaama ay dabeecadaheedii la soo baxday oo dabeecadaheeda dhabta ah uu arkay markii ay isguursadeen kadib. maadaama aysan doonayn in lacagtan ay hesho ay khasaarto oo si sahlan ay uga dhaxbaxdana waxay go'aansatay inay disho. bishii September 2004 markii labadooda kaliya ay noqdeen oo gabadheedii ay raacday aabaheed habeenada ka mid ah ay daroogayday. markii uu seexday ayay waxay ku dishay midi ay dhabarka iyo qoorta kaga mudday. macluumadaasna waxaa xaqiijinayay markii ay meydkiisa baaritaan ku sameeyeen qaybaha sare ee qoorta iyo dhabarka ayay waxay ka heleen dhaawacyo midi. markii ay midida ku dishay kadib meydkiisi waa ay jarjartay, gaar ahaan labada gacmood iyo labada lugood iyo madaxa gooni ayay u jartay. waxay ku riday bac gooniya, qaybaha dhaxana waa ay googoyday, waxayna ku riday sanduuq. waxay ku duugtay meydkii guriga qaybta dambe, qaybta beerta. markii ay guriga rahan dhigtay oo ay ka cabsatay inay bangiga guriga kala wareegaan oo ay si sahlan meydka ku arkaan, Joel ayay waxay ka codsatay inay meydka meesha ka bedelaan oo ay ku duugaan meel kale oo aan meydka laga arki karin. Joel wuxuu shaqaalaysiiyey saaxiibkiis Mike Huslin iyo Walter Shaw, iyaga ayaana ka caawiyey in meydka meeshii hore uu ku duugnaa ay ka soo saaraan oo ay ku duugaan qaybta garaashka guriga. bishii July 11keedii ayay qiratay Michelle inay dishay Byron, laakiin ma aysan sheegin faahfaahinta sidii ay u dishay. maxkamadda waxay ku eedeeday dil darajada labaada waxaana lagu xukumay 16 sano oo xabsiya. nimankii iyaga ku caawiyey in meydka ay rarto oo meel kale ay ku duugto, Michael, Joel iyo Walter, iyaga waxba looma qabsan. qisadeennii maanta intaasay ku eg tahay. tan iyo kulati dambe waxaan idinkaga tegayaa amaano Allah.